waxaa halkan ugu horeyntii si wada jir uga hadlay gudoomiyaha degmada Buuhoodle Maxamuud Axmed Shire iyo gudoomiyaha gobolka Cayn Cabdifataax Ciise Maxamed Aadan oo gobolka ku soo dhaweeyay wasiirada ugu horeeyay wasiirka waxbarashada iyo waftiga ballaaran xubnaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland mas'uuliyiinta kale ee heer gobol iyo heer degmo halkan ku sugan waxaan sharaf noo ah galabta in degmada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ku soo dhaweyno wafti ballaaran oo ka kooban wasiiro xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo dawladeedba in halkan ku soo dhaweyno aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa runtii sharaf bay noo tahay aad baan ugu faraxsanahay imaanshihiina iyo waxa kale leeyahay waqtiga dheer ee aad soo bixiseen iyo safarka aad soo gasheen oo noogna inuu dalxiis ahayn ee uu yahay safar shaqo masaafada inta laga soo marteen way idinka mahad celinaynaa dhammaan degmada Buuhoodle iyo dadweynaheeda waa idin diyaar oo idin soo dhaweynaynaa xarunta gobolka Cayn waxa sharaf noo ah inaad safar dheer noo soo gasheen sad noola qayb qaadataan aad noola dareentaan horumarka nabadgelyada ka socda magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn runtii sidii hore waxba ka bedelan inaad nala qiimeysaan nala eegtaan aad wax noo qirtaan ma doonaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan kale oo aan u mahadnaqayaa gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Dr. Cabdillaahi oo isaguna qaban qaabada iyo soo dhaweynta iyo fitayska laha aad baan uga mahadnaqayaa waxaan leenahay Buuhoodle mar hore maaha gobolka Cayn gobolka hore maaha waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay wasiirada kala duwan ee gobolada kala Puntland ka yimi inay maanta Buuhoodle si wacan loogu soo dhaweeyay ay yimaadaan nidaamka nabadgelyo ee horumarneed waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay ka shaqo madaxweynaha dawladda Puntland madaxweynaha ku-xigeenka iyo dhammaan xukuumaddan Tayani Tigsi oo horumarkan ballaaran qayb laxad leh inta ay joogan ka qabteen inta noo hadhan waxaan jecelahay barnaamijyada horumarneed iyo guud ahaan gobolka Cayn ka fulino mudana wasiir iyo dhammaan wasiirada galabta waxaan leeyahay Buuhoodle waxa ka jira amni waxa ka jira baraare waxa ka jira horumar waxaana soo dhaweeyay dad sharaf leh qiimo leh gob ah in loo yimaado iyo in loo hoydaba mudan soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen waxaan ballan ku qaadayaa inaad wax qabadkeeda heshaan si gaara galabta waxa ii farxad gelisay ardadii social work oo wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ay sabab u ahayd in la keeno degmada Buuhoodle qalin jabinteeduna ay dhacayso birti waxaan kaloo ballan qaadayaa mashaariicda iyo kuwa lamida inaad heshaan mashruuci social work xaqaad u lahaydeen iyo ka badanba inaad heshaan waad mahadsantihiin walaalaha waan ku ogahay waana lagu yaqaanaa reer Buuhoodle inay u wanaagsan yihiin marka ay noqoto dhanka haweenka rabnaa taariikhda magaalada tan iyo gobolkan oo aan iska waraysan doono dawladda Puntland waxa uu ugu fadhiyo iyo gobolkani waxa uu yahay insha Allah oo lagu yaqaan shacabkeeda ka muuqata dadka iyo dalka ka muuqata gudoonka gobolka iyo degmada ka muuqata jaamacadda bay ka muuqata oo runtii berri ay qalin jabinayaan arday tiro fiican leh oo dhammaanteen aynu ka wada qayb gali doono wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland aad bay ula shaqaysaa bahda waxbarashada ee gobolka insha Allah sidaa iyo si ka fiican ay hadda ula shaqaysana waa ula shaqayn doontaa dhammaan wasiirada nala socda halkan 5 wasaaradood baa maraya maanta 5 wasaaradood oo mug iyo miisaan ku leh dawladda Puntland baa maraya wasaarad walba shaqadeeda ay qabsan doontaa ayaamaha soo socdaanu idinla joogi doonaa si fiican baa la isu waraysan doonaa si fiican baa loo xanshashaqi doonaa si fiican baynu jilibka isugu aasi doonaa insha Allah